daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan idinka diyaarinay safarkii iyo soo dhaweyntii ballaadhnayda ee wafdidii musharaxa gudoomiyaha golaha wakiilada Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Salbaan Yuusuf Cali Koore ay ku tageen deegaanada Yeyle, Golchano, Shiruluux, Laasadar iyo Dhabansaar oo dhaca galbeedka gobolka Sool. waxaana safarka wafdidaasi daarana u kurgalka xaaladda deegaanadaasi iyo sidii loo gaadhsiin lahaa waxqabadka ballaadhan ay ka fulinayso xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanada gobolka Sool iyagoo safar ku maraya dhammaan deegaanada gobolka Sool. barnaamijkani inta uu socdo waxa idila socodsiin doona aniga oo ah Liibaan Axmed Ciise Liibaan Qaran waxaadna ka daawan doontaan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. bulshada deegaanadaasi ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen wafdidaasi iyagoona ku qaabilay caleemo qoyan calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo astaanta xisbiga kulmiye. marka xiga waxaanu leenahay mar haddii wasiirkii hidinaya hawshii annaga la wada maasha Allah harka guudka laaya iyo samada korka hawle iyo kulmiga la socdo anagu waxaan nahay heer Yeyle qabad badan buu noo qabto waxyaabo badan waan rabnaa inuu noo qabto xoogayaga iyo cartida hantidayada iyo maalkayaga iyo codkayaga waan ku furanaynaa anaguna hadaan reer Yeyle nahay dhamaantay waxaanu nahay kulmiye anigoo gudoomiyaha guud ee kulmiye مدات العرشيدة كيمي والنداغ وحانو قدومي كرمنا إن الندادي ستي قدومي ليس كدا فايا قرب كسورو قارو مدحار قبل كودن مدح كنغو سودوين وانت سودوين أنك ماها وافرحت iyo damaashaad baanu nahay waxaanu ku damaashaadaynaa oo ku farxaynaa maalintii dhaweyd hadalkii aanu isniri iyo hadalka uu kaga jawaabay wasiiradu ay kaga jawaabeen waa laba hadal oo aan islahayn guushii waa naga qaateen waa naga guuleystaan annaga waa naga guuleysateen wasiiraya baanu idin soo dhaweynaynaa magaalada Golchano waan idin soo dhaweynaynaa in badan baanu deeyd sugaynay saad noo sugay waxa in badan baanu sugaynayo kulmiyo waanu samraynay in badan ayaanu sugaynaa kulmiyaano aanu samraynay saaka waad aragtaan sanduuqa kaarka ka buuxa Faratoon hala siiyo. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland Salbaan Yuusuf Cali Koore iyo musharaxa gudoomiyaha golaha wakiilada Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir ayaa deegaanka Golchano ka dhagax dhigay ceel biyood ay baahi weyn u qabeen bulshada deegaanku oo ay fulinayso xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. maanta khudbad badan akhriyo mayno shalay baanu anagu wixii aanu oran karnay nidhi maanta waxaanu u jeednay in arrintii ay practical tahay oo ay goobtii taallo inay dadku nala arkaan warxumo tashiil badan baa jira mid si xun u hadlayaa jira mid been sheegayaa jira waxaanu u joognay ilaa shalayto inaanu riigoo ku taagan aanu dadweynaha tusno oo ay gartaan inaan waxba ka dhimanayn ilaahay amarkii wixii awooda Allah leh ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa innagoo aqoontii iyo wixii qalab lahayay la isugu keenay in ilaahay biyo ka soo saaraynu ku ducaynaynaa calool baynu ugu ducaynaynaa in ilaahay biyo ka soo saaro maalinta biyuhu inoo soo baxaan ayaynu samayn doonaa farxad
iyo alla bariyo iyo isu imaatin iyo wada hadal haddii alla idmo waxaan ku soo dhowaynayaa guddoomiyaha golaha wakiilada murashax yaasiin maxamuud xiir jamhuuriyadda Soomaaliland oo waqti doorashooyin socdaan oo aad ogtiin culayskooda waqti aad ogtiin abaaraha jira waqti xaaladda miisaaniyadda iyo dhaqaaluhu uu xidhiidhi ku jiro haddana gartay inuu ceelkan Goljanno u huro wax kasta oo ay qaadanayso in lagu hirgeliyo waxaan kaloo u mahadnaqayaa wasiirka biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aniga iyo wasiirka hore nagala qayb qaatay si xooggan noogala hawlgalay inaannu hawshaa ka midha dhalino hawshaa ay suurta gasho waxaan kaloo u mahadnaqayaa kambaniga oo isaga qudhadkiisu qayb weyn ka qaatay in hawshaan u hirgasho qodniinka keliya ma aha ee hawsha qabanayo siyaalo badan oo kale ayuu ka qayb qaatay halkan calaacalo halka iga xiga isduwaha iyuu arrintan xoog buu saaray oo guubaaba ha noqoto xasuusin ha noqoto soo ururin ha noqoto kambaniga soo reexistiisa ha noqoto aad buu isna uga qayb qaatay waxaan kaloo u mahadnaqayaa beesha deegaanka kan oo si xamaasad leh si danayn ah si wanaagsan u qaabishay in alaaliya intii hawshan ka soo qayb qaadatay iyo shirkadda dhisisa waan dhammaantiin waan idiin mahadnaqayaa ilaahay waxaannu ka rajaynayaa ceelkan inuu biyo inoo dhalo inuu biyo wanaagsan inoo dhalo biyo macaan inoo dhalo oo inoo eel irmaan oo wanaagsan inoo noqdo waxaannu markaa keliya aan idinkula dardaarmaynaa haddaad reer Goljanno tihiin iyo inta kale ee la deegaanka ah ee ceelka kan u baahan doonta ceelka ha la ilaaliyo muddada qodniinkiisu socdana ha la ilaaliyo hadhowna ha la ilaaliyo staafkana ka warhaya iyo shaqaalaha halkaa idinka idiin joogaan idinkala ballamin mayno waxaannu aaminsanahay idinba inaad xilka idinka saaran garan kartaan oo hawshaa muddada ay joogaan waxaannu rajaynaynaa inuu muddo yar ku qodo oo dhaqso u dhammeeyo waa dhowr maalmood oo uu qodayo iyo dhowr maalmood oo la xidhayo sidoo kale waxaa ceelkaasi ka mahad celiyey bulshada deegaanka waxgaradka cuqaasha iyo odayaasha iyagoona si weyn ugu mahad celiyey musharaxa guddoomiyaha golaha wakiilada yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Salabaan Yuusuf Cali Koore iyo dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland halkan maanta waxaan ugu mahadnaqayaa iyadoo in badan oon ka taagnaa markii maanta laga taagay riigga aad arkasaan oo uu shaqaynayo markii loogu galay meel adag looga saaray geela waxaa loogu heesaa wiil dhalada intay dhaarteen dhuuxa webiga iyo dhegaan ugu tagay oo ka soo dhuray kuwa ka soo horjeedow waynu isognahaye oo waynu iskaraanahaye dadka dibindaabyada ka daaye kuwa ka soo horjeedow innagoo isog dan kastaba lahaadoo ka daaya dibindaabyada waxaa dadka reer Goljanno dhammaantood baaldahaba kaga qoran yaasiin xaaji maxamuud xiir iyo Salabaan Cali Koore oo ku lumiyey in badan ku lumiyey oo saaxiibkiisa gacanta la hayay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxdaas ilaahay cimrigoodana ha raajo muraadkooda iyo kursigoodana meel sare ha gaadho ilaahay saasaynu uga baryanaa marka hore jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweyne Muuse Biixi ugu sareeyo mar labaad baan mahad ballaaran u celinayaa ilaahay baa mahadda labaad waxaan u celinayaa jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii arrin kurban nagu ahaa oo in badan nahayey oo waqti abaar iyo biyo la'aan dheerina soo martay runtii nala qaybsatay mahad baan u celinayaa maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed
ومالين همبليو وأنا يهاي همبليو mar haddii maanta riigii noo shaqaynayo oo maanta kaad aragtaan uu yahay waxaan leeyahay meel kastoos ummadda Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed joogto waa u hambalyaynayaa waxaan mar labaad u mahadcelinayaa gudoomiyaha xildhibaanka musharaxa xildhibaanada wakiilada Soomaaliland Yaasiin محمود حير oo ku magac dheer Faratoon oo runtii tacab iyo juhdi badan u geliyay ummadda Goljanno iyo ummadda deegaamada la midka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo mahadcelinayaa wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland Salmaan Yuusuf Cali Koore oo isna juhdi badan geliyay oo Goljanno ku soo noqnoqday oo runtii isaguna hawsha ka qayb qaatay cid kasta oo Soomaaliland oo arinta ka qayb qaadatayba aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan mahad kale u celinayaa bahda saxaafadda oo iyaduna in badan nagala qayb qaadatay baahida haraadka dhammaan ummadda Soomaaliland waxaan leeyahay Soomaaliland ha noolaato waxaan leeyahay gudoomiyuhu xilka ha guulaysto codka Yaxye ee deegaanka Goljanno ama meel kastoo beesha Yaxye joogto codkeeda waxaa leh marka hore Yaasiin baale waxaa xusbiga kulmiyaale aad iyo aad baan ii salaam maanta khudbad badan akhriyi mayno shalay baannu annagu wixii aannu odhan karnay nidhi maanta waxaannu unu jeednay in arrintii ay practical tahay oo ay goobtii taallo inay dadku nala arkaan warxumatashiil badan labada kelmadood waxa weeye ninbaa laba wiiloo yaryar baa isu yimi walaalow wax ma ku sheegaa buu aanba waan ogahay wiil waxaad ii sheegayso nala fari maayo codka beesha Yaxye Goljanno waxaa leh marka hore waxaannu siinaynaa Yaasiin Xaaji Maxamuud marka xigtana waxaa leh kulmiye بعد السلام مدن قدوميه ساعة الوسير عيل كان هول بايدي كسو قبطي واد كانتين يمكن إنه واد قاعدين waxaanu leenahay mar labaad shalay inagoo niri mar labaad dhaxal la isku yaalo iyo farta yayna ciili ha farta aynu kala yaasano asaas taas weeye iyo gooniyo tayila saddexaysa ceelkaas maaha ceel beereed maaha ceel reereed waa ceel dawladeed waa ceel wasaaradeed caaqilkiina way maqlayaan waa ceel dawladeed waa ceel wasaaradda horumarinta iyo khayraadka biyuhu ay handhargalaynayso maamulkiisa gacanta ay ku hayn doonto si xoog leh ninna laguma xagan karo waa ceel dawladeed maadaama hanti dawladeed uu yahay waa hanti dawladeed cidina yaysa siinin taasuna way ga dardaaran salaanka bacdi waxa weeyaan halkan maanta waxaynu taagannahay riigii loo qodayay Goljanno tacab badan baa la geliyey xildhibaanka wakiilada una sharaxan gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka warfaafinta iyo taageerayaashooda oo dhan waxay awood saareen siday Goljanno biyo weyn lahayd iyo tuulooyin kala badaniba ilaahay waa ku guuleeyay waxay hadeer u taagan yihiin in tariiqaasi uu meel fadhiisanayo inaanay intay taagaan xitaa ka dhaqaaqin
waa jacaylka iyo naxariista goljanno ay u qabaan waxaa layninba tacabkii togay kaamaal reer goljanno dee waxaan kula dardaarmannaa oo farannaa xusbiyadu waa badan yihiin meel walba waa layska juqajuqaynayaa nin waliba wuxuu weelku kugu yimaado unba wax loogu ridaa waxaan leennahay yaasiin maxamuud xiir maanta musharaxa ah codka goljanno waa noo tirsan yahay waxaan leennahay tiradaasi halkaa sanduuqaha ku wada dhacdo riiggaana waa ta laga hadlay waa riig dawladeed idinka waxaa laydinka rabaa manaafacaadkiisaad leedihiin haddii gesisama wado sifaha way aragastaan sooyaalka ka muuqda wacan inaad tahay waa la saxay inaad tahay waa la saxay haddii gesisama wado sifaha way aragastaan sooyaalka ka muuqda wacan waxaannu sidii iyo miisaanle u soo dhowaynaynaa wafdida ballaadhan ee uu hoggaaminayo musharaxa gudoomiyaha baarlamaanka yaasiin maxamed xaaji maxamuud faratoon iyo wasiirka warfaafinta Saleebaan Cali Koore waxaanu iyo bahda saxaafadda ciidanka dhammaan waxaanu ku soo dhaweynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa mahad noo ah oo farxad noo ah soo noqnoqodka ay nagu soo noqonayaan kuwargalka ay naga warqaadinayaan baahiyahayayga xasaasiyaddayada ay u dhuun daloolaan sidaa la ajliga ay mar walba noogu soo noqonayaan ayaannu idinka mahadnaqayna wasiir iyo guddoomiye dadku waa dadkiinnii waa dadkaad hawsha hore u dhasheen haddana mid la doonaysaan gacmo furan bay idinku soo dhowaynayaan maxay tahay muxubbiya kalgacal bay idinku soo dhowaynayaan ka guddooma salaata ta labaad waxay ballan qaadeen inay inoo qabtaan wax kasta oo baahideennu tahay aynu ka hadalno horena way inoogu qabteen waad ogtihiin riigga halkaa ka qodan ka boqol jirkaa iyo ka uurka ku jira waxa weeye yaa wada leh oo mustaqbalka iyo nolosha iyo aayahooda ay u keeneen abaalgudtoodu innaga waa maxay markaa waxa ay inaga codsadeen oo aynu qabanno waa cod war reer shilixooga codka yaala war codka yaale wuu mutaystay run xaqiiq wuu mutaystay wasiirka ama u tartamaya golaha baarlamaanka wasiirkii arrimaha dibaddana ahaa yaasiin xaasin maxamuud xiir faarax Saleebaan Yuusuf Cali Koore wasiirka iyo wafdida uu hoggaaminayo gabco furan baanu ku soo dhowaynaynaa haddaannu nahay deegaanka shuulixeed waxqabadka ninkii horaa tilmaamay waxaana cantuujiyey yaasiin xaaji maxamuud ninkuna wuu muuqdaa hadduu madax yahay ninka la yidhaahdo Saleebaan Yuusuf Cali Koore waan isagana waan u mahad celinaa ilaah baa mahadle wuxuu qabtay wasiirka biyuhu ahaan jiray wasiirka warfaafinta lagu bedelay xusbigana gabco furan baan ku soo dhawaynaynaa haddii ilaha idmo waannu abaal gudaynaa waanaga soo noqonnay marar badan oo kalena waadna arki doontaan waa soo noqnoqonaynaa waxbaa la qabtay iyo waxaa isaga warramayno dee waa ogtihiin shulux biyaheeda iyo ceelkeeda iyo kuma ekayn maanti dhowaatee marar badan oo kale oo ka horraysay ayaa wixii laga qaban karayba laga qabtay iyadu waa taas waa taa waxaannu ka nimi meel baahan oo biyo u baahan oo harraad hayo
oo sidii ayaamihii yaryaraa aad u dareenteen haraadka iyo biyola'aanta iyada ay ku noqotay joogto meesha la yidhaaho gol janno oo aad u baahan oo aan saaka riig u soo taagnay oo ceelkii u qodaynaa oo ka bilowna iminkuu bilaabay waxaannu rajaynaynaa inuu ayaamaha soo socda ay biyo helaan waxaannu ku soconnaa dhabansaar oo xaggan idinka xigta oo iyanaha raadan oo aannu ceel u qodaynaa oo riig u keenaynaa waxaa ka bilaabmaya ayaamaha soo socda gobolka waxaa ka bilaabmaya oo aaggan weliba si khaasa uga bilaabmaya biyo dhaamis dawladda kulmiye dadka way danaynaysaa noloshooday danaynaysaa inay wax u qabatay doonaysaa waxay u bilaabaysaa biyo dhaamis dhulka haraadku ka jiro ee wakhtiga kan abaarta iyo kulaylku uu jiro waxay doonaysaa inay dadka biyo la soo gaadho berrintaa la bilaabaya idinku waa ladantihiinoo ceelkaa idin qodana waa laga yaabaa in dhinacyada laydinkala dhaafdhaafo laakiin dee meelaha kale awal idiin imaanayey oo dhan baa la geynayaa biyaha oo waa la waraabinaya wakhtigan ololaannu ku jirraa wakhti badan oo aannu wax qabanno ama mashaariic qabanno ma hayno waannu ka shaqaynaynaa waan ogahay inaan MCHK ama kaalintii meesha caafimaadku inaanay idiin wada dhammayn oo idiin hagaagsanayn waan ogahay taana waa ka soo shaqaynaynaa waa maxay la buuqayaa intaasaannu idiin sheegaynaa safar baannu nahay dhabansaar baannu ku soconnaa intaan gabalku naga dhicin aanu rabnaa inaannu hawla ka qabanno waxaan rabnaa inaadna fasaxdaan saadaashu ma dheelido aqoontu ma siibate caday sumcadiyo katida karamada ereyga sugan karamada ereyga sugan yaasiin xaaji maxamuud faratoon oo ah guddoomiyaha baarlamanka iyo wasiirka warfaafinta waxaana u gartay ilaahay waana uga barinay in ilaahay guddoomiyaha baarlamanka ku soo saaro baryadayadana ilaahay waa naga aqbalayaa ninkii dalka iyo dadkaba wax u taraya ilaahay nagu kaalmaynayaa codkayagu wuu midaysan yahay baydhbaydh male waa sumalbaraar kuma jiro waa lays yaqaan nin hore iyo nin dambaba adeerka ilaahay waxaan uga baryayaa xilkaa inuu ku garab galo waa gelayaa wuuna helayaa markaas sidii miiraale nugu siyoonkaday ayaa lama qaado runtii gushu waadiga waxaan rabaa message-ka inaad qaataan fariintaan samaynaya waxa weeye waayaha qofku soo maraa waa kala duwan yihin maalinba heer bay taaganta xoolaha ayaa kala mudan geela ayaa kala mudan aad adigu leedahay oo raacato ayaa kala mudan mid baa lagu ogolaan in ilmuhu jaqo oo la yidhaahdo heblaha laga sudko awrtaa kala mudan mid baa caanadaadiyaa mid baan carruurta loo dhowayn mid baan gurgushaaga la saarin mid baan waxaad jeceshahay la saarin mid baa duubashida loo naca sow sidaa maaha midna waxa weeye hayin gurgurshaaga iyo carruurta iyo maqasha lagu aamino oo hoggaanka loogu laalo oo reerka wax badan soo xambaaray oo la soo gurgurtay oo loogu soo dhaamiyey oo ka bukan la saaro oo ka jiricsan la saaro mararka qaarkoodna looga naxo in reeryada iyo dhaanka lagu celceliyo soo sidaa maaha
yaasiin kuma cusba bay ila tahay ilaa 19 kollay inta aan garanayo halkanuu idinla taagnaa deegaanka ugu badan ee uu ku soo libdhayeyna deegaankan uun buuxa ama xil ha hayo ama yaanu xil hayn ama waxasido ama ha nabdaynayo ama mashaariic ha qabanayo ama siyaasada xambaarsanaadee deegaanka ugu badan uu imanayay kanuu ahaa waxaa iman doona kuwa waayuhu keenay ayaa na soo dabamari doona kuwa waayuhu keenay baa idin iman doona waa la kala mudan yahay waana la kala horreeyaa bini'aadanka waxaan leeyahay dabtu waxa weeye dabtu xitaa hasha madida ahi marka ay dhuun yeedhiso ninkanihi midida uma quudho wuu ka warwareegaa xitaa in hilib ahaan loo cuno soo sidaa ma aha waxaan u malaynayaa marka aan runta sheego ee aan xogogaan ahay ee aan 30 sannadood aniga iyo yaasiin iyo raggalihii aannu isag joognay deegaankan cid uga mudani inaanay isaga jirin reer laasadar salaamu calaykum ayaannu isu taagnay labada bilood ee soo socdana marar badan baynu sarki doonaa waannu idinku soo noqnoqon doonaa iyo wixii ka dambeeyaba insha allah waxaannu maanta ka nimi maalinba deegaanka meeshii baahida ka jirto ayuu waxa aynu ka qaban karnaa aynu ka qabanayna ma rabno inaannu been idiin sheegno wixii xaqiiqadu tahay maalinba wixii la awoodo ayaa wax la qabanayaa waa laydinkala shaqaynayaa wixii baahiyiinnu yahay maanta deegaan aad u baahan baannu ka nimi deegaanka layaa gol jalno sida odayaashii uga hadlayeen ninkan waxaan malanayaa gacanta waa wada garanaysaan muxuu ahaa sawshe reer meesha la yidhaaho gosha oo aad biyo ugu baahan oo bil ka hor aanu ka ballan qaadnay inaannu biyo u dooni doonno ayaannu riig u keennay riiggii baa qodaya iminka waannu kaga nimi iminka waxaannu ku soconnaa dhabansaar oo iyada lafteedu biyo u baahan oo aad oomana u ah oo aannu aad uga xumaannay markii aannu qurnay riiggii biyaha u qodi lahaa ilaa caawu soo gelaya aroortii jidkuu soo haya isagoo mar hore sheekh wuu soo dhaafay marka dhabansaarna waa loo qodaya labaduba biyay si aad ugu baahnaayeen waa la isdhaandhaamaa laasadar way dhaandhaayoo ceelal badan baa ku yaalla inkastoo laga yaabo biyihii ay dee jeclaan lahaayeen aan ahayn dadka cabbiyi laakiin dee iyadana maalin baa loo soo jeedsan doonaa baahiyaheedu maalinba meel baynu jaraynaa intaasuu baan sheegayaa bulshadu kugu saacido horseedka u saaxido sibrarka u buuxsade shacbiga samawgu adeega mar kale ha lagu suntee waxaan soo dhaweynaynaa wasiir Saleebaan Cali Koore
musharaxa golaha wakiilada yaasiin xaaji maxamuud soo dhawaadan leeyahay waqtiga ballaaran ee la socota waxaan halkan aan uga mahadnaqaynaa haddaanu nahay deegaanka Dhabansaareed madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Saleebaan Cali yaasiin xaaji maxamuud waan uga mahadnaqaynaa baahidii aanu u sheegnay haddaanu nahay deegaanka Dhabansaareed dhowr iyo 20 casho ka hor si degdeg ay uga soo jawaabeen xukuumadda waxa weeye ballanqaadkii aanu la ganlay way ka soo baxeen 24 cashay kaga soo jawaabeen waxa weeye annana xil baana saaran iyaga xilkoodii waa ka soo baxeen xilkanna saaran waxa weeye ilaanu annana waajibkeeda aanu ka soo baxno miiskana aan u saarno cid kalena aanan kula lalamayna haddaanu nahay reer Dhabansaareed waayo baahida bini'aadanku waa biyo biyihiina waanu helnay waxa weeye wixii kale aan uga baahno xukuumaddana waxaan rajaynayaa in sidaasoo kale naloogu qaban doono muddo dhowr iyo 20 saacadood in la ka soo jawaabayo waxa weeye xukuumaddaanna waa la shaqaynaynaa iyana waa nala shaqaynaysaa maantana waxay naga rabto waa naga helaysaa waxa weeye waxaa kale halkan leeyahay cidaan waxba noo hayna naga yeesan noo imaan dhaqankiina jecel magacaa dhacdaa dhexdhexaadin kara xildhibaan dhufsile ee baheen ka dhigay xildhibaan dhufsile ee baheen ka dhigay hawlaha dhibtaa idin dhaafin kara haddii aad dusmiyo tala dhiiran iyo dhaqan aad rabtaan lama dheeliyee bulsho yahay dhammaan dhoobada farta leh faratoon u dhiga abidkii ma dhace kaarka ugu dhura abidkii ma dhace kaarka ugu dhura dhoobada farta faratoon u dhiga ee soo dhaweeyey musharaxa doorka darajada saddexaad ee ugu awoodda ugu sarraysa ee golaha baarlamanka insha Allah noqon doona gudoomiyaha golaha baarlamanka iyo wafdiga faraha badan ee ka mid yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta Saleebaan Cali Koore madaxda faraha badan leh hay'adaha badan ee dawladda ka soo jeeda Soomaaliland ee aan maanta nasiibka u yeelanay halkan inaanu ku soo dhaweyno haddaanu nahay shacabka reer Dhabansaareed ka oday dhaqameed ahaan waxaan idin leeyahay oo codkii shacabka Dhabansaareed ku hadlaya musharax wasiir adinka iyo wafdigiinuba ku soo dhawaada gacmo furan doorkii hore wareegii labaad weeye ee aynu kulanno mujtamaca reer Dhabansaareed maalintii hore iyo maantaba si wanaagsan bay kuu soo dhaweeyeen axdigii aad gasheen qaybtii ugu horreysay ugu muhiimsanaydna waad ka baxdeen waad ku guulaysateen bixitaanku wajiyo badan buu yeeshaa waxaad ku guulaysateen baahidii ugu mudnayd ee Dhabansaari sheegatay inaad dabooshaan haddii ilaahay idinla qabto intaa dhay ma jiro wax ilaahay uu diido mooyaane haddii axdigii horeba aad haddeer dhammaystirteen wax welwel oo aanu ka qabno qaybaha hadhayna inay dhammaanayaan insha Allahu tacaala aad u adag inaad si buuxda noo soo dhaweyseen sida aad noo soo dhaweyseen ilaahay waxaanu idin weydiinaynaa in idinkana cid kasta saa idin soo dhaweyso suldaan iyo dhammaan dadka kale ee odayaasha ee halkan jooga haddaanu nahay wafdiga halkan maraya waxaanu idin wadnaa oo aanu rabnaa inaad nala ogaataan in dalka doorasho ka dhacayso codkana aad siisaan Professor Yaasiin Maxamuud Xeer waxaan rabnaa inaad nala ogaataan waayaha iyo wakhtiga odhan mayno buuraha iyo ciiddaannu ka dhigaynaa macaan markaannu xukuumadda qabanno waannu haynaa markaannu kursiga helno waannu haynaa wixii ilaahay ina kala baday ayaynu kala qaadanaynaa
nimaan waxba faraha ku haynin muxuu idan siin karaa dadweyne horta muxuu samayn karaa maalin hore waxaan idinku yidhi meelaan joogay ninka gaadhiga wada unbaa lala macaamilaa ninka gaadhiga wada unbaa lala macaamilaa gaadhiga xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee kulmiye waxaa wada xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisoo wada socda ayaa gaadhiga wada waxaynu isdhaafsanaynaa wixii hadba awooda iyo wixii aynu isu qaban karro waxaan halkan idinkaga dhawaaqaynaa inuu idiin soo socdo riigii biyuhu iyo ninkii saamin lahaaba inay soo gelayaan aroortii taayadu dhagax dhig maaha waa bil maaha waa 2 toddobaad maaha waa berrita aroortii wakhti ka yaroo laysu qabta miyaa jira waxaannu ka nimid gol janno oo aad iyo aad ugu baahan biyo meelaha ugu mudan ee aannu doorkii hore markaannu halkan idinka dhaafnay meelihii aannu aad ula yaabnay biyola'aanta ka jirta waxaa noogu mudnayd dhabansaar iyo gol janno labadiina maanta gacanta waxbaa loogu hayaa gol janno sida aannu idiin sheegnay saaka ayaa dhammaan waxa la wixii riigahaa iyo wixii qodayeyba ay bilaabeen tanna insha allaahu berrito ayay iman doonaa riiggii iyo ninkii sahaminayey iyaga ayaana sheegi doona meesha riigga laga qodayo iyo meesha biyaha laga soo saarayo annagu waxaan leenahay waannu haynaa kaana waannu haynaa wax kale iyo dhiidhiina waa ku daraynaa waxaan mar labaad idinku boorinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waa xisbiga kulmiyuu ka soo jeeda golaha wasiirada iyo waxa janan waddanka joogaana waxay ka soo jeedaan xukuumadda kulmiye yaasiin maxamuud xiirre wuxuu ku soo biiri doonaa guddoomiyaha golaha wakiilada ahna ka mida xisbiga kulmiye sow sidaa maaha waxaan u malaynayaa inaynu kala qaadannay ballamahaynu kala qaadannay annagana waxbaad noo dirteen idinkana waxbaannu idiin dir barbarkay ka baxdaa waa bakayla qale sow sidaa maaha waxaa idiin iman doonaa dad waayahaya wakhtigu keenay oo odhan doona anna way kan sida aanu sheegay biciidkaa iyo meeshaa la gubayo ayay idiin sheegi doonaan laakiin annagu intaasoo runa iyo wixii aannu ku darayno iyo waxaynu iskaga macaamilayno iyo waxaynu yeelayno baannu idiin haynaa soo inaynu taa ku dhaqanno maaha waxaannu aad uga yaabay yaasiin weliba guddoomiyuhu iyo aniga oo uu runtii aad iigu sheegay in dhabansaari tahay meel aad iyo aad ugu baahan biyo oo aad garan kartaan deegaankan oo dhan inaannu si gaara idinkaga xulannay wixii ummadda loo helay waxaannu u xullay dhabansaar iyo gol janno oo aad garan kartaan inaannu siyaabo gaara u xullay soo ma fahmi kartaan gol janno iyo dhabansaar siyaabo gaara loo xulay intaa ma garan karnaa waxaynu ku ballannay inaad idinkuna fulinaysaan gacanta u taaga aad iyo aad baan idiin salaamayaa العالمين والصلاة والسلام على رسول الله reer dhabansaareed rag iyo dumar yar iyo weyn
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii aad bay noo qalbi qaaday oo aad baan ugu faraxnay sida xamaasada leh ee aad noo soo dhaweyseen aad nooga hortimaadeen markii labaad ma aha markii koowaad waa markii labaad sida la sheegay muddo bil ka yar waqti laga joogo ayaan idin soo maray maalintaana si aan filayno aad u diiran baad noo soo dhaweyseen maantana sidii leeg waa idinka mahad celinaynaa maalintaas sidii loo sheegay waxbaynu isu sheegnay baahi baad noo sheegteen annana waxaanu doonaynay baanu idiin sheegnay waxaynu ku kala tagnay in qolo walba tooda ka soo baxdo laakiin dee taayada ayaanu u aragnay inay tahay marka hore leh mudnaanta in la fuliyo taa nalaga doonayey dagaal baanu gallay hawl baanu gallay aad baanu uga murugoonnay runtii oo ay noo dabaqday baahidii aad halkaa ka sheegateen deegaan dhan oo aan biyo lahayn waa xaweye min subxaanalla weeye aad bay u adagta sidaa darteed waanu uga hawlgallay waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo wakhti aad u adag oo doorashooyin socdaan oo abaari jirto oo dalka biyola'aani meel walba ka jirto oo miisaaniyaddii iyo dhaqaalihii dawladda uu ku baxay nafbadbaadin inuu u huray lacagta intaa leeg iyo kharashka intaa leeg awoodda iyo dhaqaalaha uu ku baxayo ceelkaas ku kacayo kan halka laga qori doono iyo ka goljanno iminka ka socda ee aanu kaga nimi markii uu saaka si wanaagsan u bilaabay daliilkii aanu ka nimi sidii wasiirku idinku sheegay halkan kii qodi lahaa mar horu sheekh soo dhaafay berbera haddeerto waxaan qiyaasayaa buurtii sheekh iyo meelahaas ku jira hadal kale oo badan aan odhanayaa ma jiro hadal waxoo inoo yaallaa marka ay alaabtaasu inoo timaaddo ee ceelkaa qodniinkiisu bilaabmo iyo marka ay biyuhu halkaa ka soo baxaan ayaa hadal inoo yaallaa raggii iga horreeyey baa idinla hadlay wixii anugu odhan lahaa horaan idiin idhi intii iminkana waxaa idin yidhi wasiirka iyo raggii halka ka hadlay intaas umbaan odhanayaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa waa mahadsanta barnaamijkan oo aan kaga hadlaynay safarkii iyo waxqabadkii musharaxa golaha wakiilada yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta salebaan yuusuf cali koore intaasi ayuu nagaga egyahay intaan ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa anigoo ah liibaan qaran oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan haynaa